dhakhtarka caanka ah ee Dr. Cali Macow Aweys oo howlo caafimaad muddooyinkii ugu dambeeyay ka wada magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dalka weli uusan ka dhamaanin caabuqa coronavirus isagoona bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay feejignaan dheeri ah ka yeeshaan ka hortagga cudurkaasi. qofka hadduu qunfacayo ka dheerow, haddii uu hindhisaayo ka dheerow, haddii aad aragto ninkan inuu wax hergab camal hayo ka dheerow, duufsanaya ka dheerow, meel dheer ka mar. ninkaas waxaa laga yaabaa inuu qabo. waxaa jira laakiin dad badan oo cudurkii jirkooda ku jira aadan garan karin laakiin wata ayagana weli ay dareemeen, kuwaas laftigood way kuu dhiibayaan. marka waxaan leeyahay si kastaba ha ahaato ha la iska taxadaro, weliba meesha lasaga qaado oo aad lasaga qaado waxa weeyaan maxaan arkay maalinkii jimcaha meel halkaan oo gabley shimbir lagu cayaarayo, dadkii baa wada kulansan oo wada cayaaraya oo buuxa. meeshaas waa meesha ugu daran oo lagu kala qaado. waxaa lagu kala qaadaa maqaayadaha oo inta la fariisto la qoslayo la kaftamayo oo kaftanka iyo laftigeeda waa lagu kala qaadaa. masaajijyada haddii la isku dhow yahay ilaahay salaadiisa meel kasta aad ku dugato ilaahay baa ka aqbalaya, bari ilaahay waa aqbalay noqonaysaa. laakiin haddii xataa masaajidka aad ku dukanayso kala dheeraada, haddii aad kala dheeraataan wax dhibaata ma jiro. laakiin masaajidka waad aragteen markaad ku jirto ninbaa iska qunfacaya, ninbaa hindhisaya. Dr. Macow ayaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolada dalka waxa ugu baaqay inay kala dheeraadaan. gacnahaaga iska nadiifi, qafkii ka dheerow, la sheekayso laakiin xoogaa kala dheeraada waxba maaha, waa la sheekaysan karaa. laakiin waxaa la diidayaa maaragta isku soo dhawaanshaha iyo lasdhudhunkanayo iyo annaga taas waa dhaafi la'nahay. Soomaalina meel kasta ay joogtaba saasay ku socotaa. waxaa dilayana maaragta Ingiriiska waa dadka ugu badan iyo Mareykanka ku dhamaaday, Soomaali badan baa ku dhamaatay. oo gobolada marka hadda laftigood waxaan talo ku siinayaa feejignaada, maaragtay aad iyo aad loo feejignaado. dowladda Soomaaliyeed wixii tabarteeda ah runtii way dadaalaysaa, dadaal waa haysaa. Dr. Cali oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay calaamadaha qofka uu ku dhaco cudurkaasi. horta ayaamaha hore marka uu kugu dhaco bahalkan oo xoog kugu dhaco ma neebsan kartid, ma istaagi kartid, ma fariisan kartid, ma seexan kartid, qufac iblaayo ayaa ku imaanaysa. taasoo markay timaado oo qufacaas zaa'idka u yimaado daawooyin lagu siinayaa xoog badan, hawa lagu siinayaa, hawa la'aan, oxygen la'aan ma ahan kartid. oxygen-kaas lagu siinayaa oo subax iyo duhur iyo habeen iyo adiga 5 6 jeer 7 jeer maalinkaas lagu xirayaa koowgii. haddii ay noqotana waaba lagu dhaafayaa xoogaa ilaa hawadaas ay ka soo noqonayso daawadii inay waxtarkeeda la arkayo. wiiga hore marka wiiga hore aad ka baxdo waa in lagu istaajiyaa, aad socotaa 5 talaabood, 3 talaabood, 4 talaabood horta aad ku bilaabaysaa ilaa neeftuur iyo wadna garaac badan baad la yeelanaysaa. waxaa la rabaa daawooyinkii haddii aad qaadato oo qalma. wiiga labaad markaad ku dhex jirto socodkii baa xoogaa ku imaanaya, adiga tallaabadii yaa badanaya. wiiga saddexaad si fiican baa lagu socodsiinayaa 10 tallaabo, 12. wiiga afraad 20 baad gaaraysaa. marka waxaa la rabaa socodkaas wadnahaaga iyo sambabka waa inay shaqeeyaan oo neeftii aad heshaan. haddii aadan socodka samaynin oo aad fariisato waa kugu dhamaatay. waa fariisanaysaa, sambabku xiranayaa, wuxuu sameynayaa lungs fibroid wax la yiraahdo sameynaa, meeshii hawada gelaysa ciriiri ka dhigaya. hadduu ciriiri dhigo gaasaad eronaysaa, ma neefsin kartid, neeftii baaba ku dhibaysaba. marka haddii laakiin kowgiiba laga howlgalo mobilization la yiraahdo adduunka waa la yaqaanaa, weliba hadda adduunka weliba Jarmankan aniga aqaanaa. qofka markii la qalo maalinka koow, maalinka labaad, maalinka saddexaad waa la istaajinaa, waa la socodsiinaa. waxaa la diidaa jiifka iyo fadhiga badan ayaa la diidayaa. socodsiidkaas la bilaabo qofkii wuu isu soo saxayaa, jirkiisa wuu isu soo dhisayaa. taasaa ugu muhiimsan waxa la sameyn karo. ugu dambeyntii Dr. Cali Macow Aweys ayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqay inay ku dadaalaan caafimaadka. hal la dadaalo, caafimaadka lagu dadaalo, nadaafadda lagu dadaalo. aniga waxaan leeyahay Soomaali meel kasta ay joogtaba caafimaadka wax la siisan karo male. lacag kuma gadan kartid. ninka caafimaadka qabo ma garan karo, kan cudurka qaba garan kara. markuu cudurku yimaado oo sariir fuulo oo asoo la gaari lagu wada lagu keeno
ayuu dareemayaa ninkan inuu cudur qabo, laakiin markuu caafimaad qabo ordaayo ma dareemayo. marka haddii lagu yidhaahdo maba lagu daaweyn karo, daawo ma lihi, lacag kastoo aa haysato maxay kuu sheegaysaa? marka Soomaaliya caafimaadka ha lagu dadaalo. Cabdiraxiin Caylaawe, Somali Cable, Muqdisho.